sidee baynu markaa elementiga ugu soo dari karnaa waxa la attribute waxaasoo dhan waxaa ka horeysaa inaad ogaatid waa maxay attributesku waxay macluumaad dheeraada siiyaan elementiga sida size-kiisa meeshuu aadayo midig iyo bidix center iyo qaybo kale fara badan haddaba si aad attribute ugu soo dirtid elementiga qaabkan ayaa isticmaalaysaa formatkan ayaa isticmaalaysaa elementigii ayaad wax dhahaysaa attributeskiisa la mid ahaado qiimo waxaad kaloo kusoo dari kartaa attribute labaad oo la mid ah qiimo kale ka bacdina contentigii ayaad samaynaysaa elementigiina waad xidhaysaa meesha attribute 1 iyo attribute 2 waxay kugu taagan yihiin noocyada attribute-yada sida size alignmentiga oo kale kuwaasoo loo qoondeeyay inay yeeshaan qiimayaal hadduu alignment ahaa inaad tiraahdo left ama right hadduu size ahaana aad size-kiisa u qeexdid hadduu color lahaa aad colorkiisa u qeexdid tusaale ahaan header oo h1 u taagan align center waxay headerka geenaysaa xagga dhexe waayo element walba wuxuu marka ugu horeysa kasoo bilaabmaa asal ahaan ama default ahaan dhinaca bidixda kal dhexda ayuu keenayaa tusaale ahaan paragraph-kana align waxaad geysaa left marka already uu joogay bidix waxaad kaloo ka dhigi kartaa inuu aado right xagga midigta bal aynu tijaabino haddaba elementiska sida loogu soo darayo attributes